warshadii hore sonkorta ee isnaayay magaalada Jowhar waxa ay ku burburtay dagaalkii sokeeyay ee Soomaaliya horaantii sagaashanaadkii. hadda waxa ka haray qolfoofkii birihii warshadu ay ku taagnayd oo kaliya oo wixii kale oo dhan waa la dirtay oo sanado badan ayay bilaqadu ku socotay. warshadan oo mar ahayd ilaha ugu waaweyn ee wax soo saarka Soomaaliya ayaa waxa aasaasay ninka tirsanaa qoyskii reer boqor ee Talyaaniga Luigi di Savoia Duca della Abruzzi kaas oo Muqdisho yimid dayrtii 1918 xilligii dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. haddaba sidee ninkaasi uu ku yimid Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar sidee bay ku timid fikradda aasaasitaanka warshada sonkorta ee Isnaay sidee bay magaalada Jowhar qudheedo ay ku aasaasantay oo ay ku noqotay magaalo. arrimahaasi iyo taariikh kale aad muhiim u ah ayaa waxa aan ka wareystay Matani Abradi Boj oo muddo dheer ka mid ahaa saraakiishii maamulka ee warshada tan iyo burburkii Soomaaliya. Isnaay waxaa aasaasay nin la yiraahdo Amadeo Luigi Duca degli Abruzzi oo Talyaani ah oo ahaa nin korneel ah safaaradda Talyaaniga ruushka ay ku lahaayeen wuxuu ka ahaa oo qaybsana xagga ciidamada. kalka markaas waxaa dilaacay dagaalkii koowaad adduunka. ninkan wuxuu ahaan jiray korneel laakiin ciidamada badda ah. wuu soo baxay boqortooyadana ka mid ahaa familka boqortooy nin amiir u ahaa. wuxuu yimid Itaaliya ku soo laabtay. markuu ku soo laabtay wuxuu codsaday boqortooyada in asaga uu hogaamiyo ciidamada badda oo Yurub. markaas waxaa hogaaminayay Ingiriiska. Ingiriiska wixii loo bandhigay waa diiday Ingiriiska intuu qof Ingiriis joogo qof kale ma noqonayo. waagaas Ingiriiska caan waxay ku ahaayeen badda. ninkan waa soo carooday waa soo baxay marka uu soo qaatay oo shicib ah. wuxuu yimid xamar ka soo degay asoo dad wato asiga professionkiisa researcherna waa dadka wax baaro ahaa oo beerahana waa yaqaan. Soomaaliya yimid Soomaaliya markuu yimid wuu raacay ilaa Kismaayo ilaa Uganda ka dhacay. wiigan taqaan la Rwenzori oo Uganda ku yaalo ayuu raacay meeshaas uu tagay si uu raadsado dhul iyo dad lala macaamili karo. markuu meesha tagay wuxuu arkay xaggaas inuu ku dhaqmi karin. waa soo laabtay Mahadey wadana tagay. Mahadey waa dhulkii waa anfici waayey. Jowhar uu yimid. Jowhar markuu yimid wuxuu isugu yeeray dadkii deegaanka deganaa. ninkan beerrey ahaa wuxuu baan dhul oo dhow webiga. markaas wuxuu la heshiiyey 3 tuulo. tuul la yiraahdo Baalguri, tuul la yiraahdo Beexaaw iyo tuul la yiraahdo Jowhar Eylo. hadda Soomaaliya loo bixiyay Jowhar Soomaaliya laakiin waaga Jowhar Eylo ahayd. wuxuu ku heshiiyey laba inay dhul siiyaan oo tabcado. tuuladan Baalguri wuxuu taqaanaa ku heshiiyey inay siiyaan dhul degaan ah. dhul degaan ah warshadan lagu dhisi karo. Baalguri waxay siisay hadda xafadan horseed ah iyo Isnaay oo degaan markaas loogu talagalay dadka cadaanka inay degaan. wuxuu ku bilaabay tijaabooyinkiisa inuu tabco loos suuf inuu tabco ayuu ku bilaabay. maxaa waagaas waxaa loo aqoon jiray dalaga isticmaalka loo yaqaan suufki iyo looski iyo waxsaas. looski wuxuu ka sameynayay saliid. suufkana mirihiisa saliid uu ka sameynayay wuxuu dhoofinayay Itaaliya. suufkana waa laga shaqeynayay waa la xirma ahaan loo xiray Itaaliya uu dhoofi jiray. waxaa ogaaday in saas wax ku socon karin. kalka wuxuu ku fikiray inuu sameeyo warshad sonkoreed. waa baxay Itaaliya ku laabtay si uu raadiyo maalgelin. kalka wuxuu soo sameeyay shirkad lahayd Sais. Saistaas waxay ka koobneed 61 saamiley. asiga kii koowaad 60kii waa saamileyda asana gudoomiye waa 61 saasay ku noqdeen. wuu soo laabtay
maraakiib kaloo soo ijaartay alaab dhisma iyo warshada iyo horta injineeri waxaasoo keenay si loo sameeyo assessment si loo sameeyo warshada inta laga dhigi karo beeraha inta laga dhigi karo wax saasuu kusoo yimid waa mugaasiyto 1999 waaye waxaa dhacday dhulkii waa la siiyey wuxuu bilaabay degaan inuu bilaabo horta teendooyin waxaasay degeen laakiin wuxuu bilaabay inuu dhismo galo dadkii meeshay degi lahaayeen dadka ajnabiga uu keenay oo farsamo yaqaanka ahaa degaanka hadda meesha isnaay la yidhaahdo oo degaan u ahayd markaas ayuu dejiyey warshadana waa habeeyey oo meeshii laga samay lahaa shaqadii warshadda ayaa bilaabatay intii warshadda dhismaheedii iyo bira keenadeedii waxaaseytu wuxuu bilaabay dhulkii la siiyey dhul diyaarin ayuu bilaabay dhul diyaarinta markuu bilaabo dhul weynaa la siiyey makiinadii uu keensaday kuwa dhulku burburinayay kuwu simaayay waxaa dhan uu keensaday qasabka wuxuu ka keenay oo tilaalka ah South Africa marka noocaas wuxuu ahaa nooc ugu fiican hadda koor tijaab asiga uu ku sameeyey wallahi 310 noociisa waa mid u adkaysi badan xagga mataqaanaa xasharaadka oo gala bahalka qasabka xoogaa biyo la'aan socon karo ilaa muddo kii oo keeni waa tilaalay waa abuuray wixii waa socdeen warshadii waa la dhameeyey qasabkiina waa soo baxay qasabka 14 bilood ayay ku qaadanaysaa marka la tilaalo ilaa uu ka soo baxo oo diyaar uu noqdo shafid gaas waxaa joogeen 150 cadaan ah oo farsamo yaqaan gacmeed injineeri iyo xasaasi dhismo iyo kulli iyo 3000 oo Soomaali ah oo ku bilaabay shaqadii waxaan ilaahay taariikhda 1926 ayay ahayd warshadda wuxuu ku bilaabay 150 kintaal maalintii inay soo saarto ayuu ku bilaabay muddo saas ku socotay intuu saas joogay waaragtay asiga naftiisa naagna ma qabin iskaabalo ahaa gurigu samaystay nin oo mataqaanay oo German ah ayuu ka dhigtay agaasimaha guud halka ninkan ciidan waa ahaa Talyaaniga jaawo ogaaday inuu duulaan ku soo yahay Ethiopia kalku wuxuu aadi jiray Ethiopia aadi jiray or ayuu mataqaanay aada information u raadin jiray maalin asigoo soo noqonayo ayaa informationkii documentiga ugu jiray ayuu ka dhacay sanduuqii dhacay markuu dhacay waa soo galeen intay yimaadeen sanduuq waa la waayay ninka agaasimaha guudna German oo ahaa la iskuma fiicneen Talyaaniga iyo Jarmalka markaas ito Jarmalkii sanduuqii ma gala waayay ninkii Jarmalka ahaa la tuhmay niyo adeegan ku tuhmayna leeyahay sanduuqaas keen ana wax ma arkin waayo muddo la siiyay subaxdii dambe ninkii waa isdilay laba maalin ka bacdi dad reer baadiye oo ka yimid dhulkaas Hiiraan iyo Ethiopia meesha iska galaan dad ka yimid waxay keeneen sanduuq marka xaaqi calaamadii boqortooyada ku taalo sanduuqi waa soo qaadan waa keeneen ciidan jistaan ka soo helay kalka taas waa sheeka ka baxsan waatii warshada ninkaan naag ma qabin iskaabado ahaa markii la joogay 45tii asi waa dhintay wuxuu dhintay 1933 agoosto bish agoosto 3deedii uu dhintay kalka joor ma gaaseeto joor lama dhigi jirin waxa loo bixiyay villaggio hadda meesha horseed ay ka dhisan tahay joor la ahaan jirtay meeshaasayto ayuu dadkii Soomaalida dejiyay dad carab oo keenay dad mataqaana oo ka keenay magaciisi dhulka hadda la yiraahdo Puntland dad oo ka keenay dad xamar oo ka keenay iyo dad tuulooyinka laga keenay
oo la tababaray oo gaalada la shaqayn jireen. kalka village duuk dali abrusia la dhahay magac kalna waa daba socday oo la yiraahdo bandar jadiid. bandar waa balad af carbi waa, jadiidna waa jadiid, kalka magaalo cusub waa oo jiri jiray markii hore. laakiin saddexdaas kuna ku bilaabatay Jowhar, shaqadan saasay ku bilaabatay. ninkan markuu mataqaanaa dhintay 45 shirkad kale ayaa kala wareegtay, dad kale kala wareegeen. waxay sameeyeen mataqaanaa nin lahay avocado Bruno ayaa gudoomiye u noqday shirkadii oo kala wareegtay qodii saas asaastay. magaciisaasna waa socday, suu u socday. ugu dambeyntii waxaa la gaaray 61kii la gaaray xurnimadii Soomaaliya waa qaadatay. markay qaadatay hadalaa bilowday in shirkadaaneeto lala noqdo shirko size in shirka dowladda ay la noqoto ayaa la bilaabay, lana weyneeyo wax soo saarkeeda. halka si loo weyneeyo dhulkeena in la weyneeyo waaye. dhulkii waxaa la gaarsiiyey 8,000 eetar iyo xoogaa ka dheeraada ayaa loo sameeyey. alajibi laga shaqeeyey, kanaal loo sameeyey. 8,000 eetar iyo warshadda si la isu waafajiyo. hawshaas warshadna waa la weyneynaya 63 bilaabatay ilaa 65 warshadda ayaa la weyneynaya. dhinacaana dhulkiyaa laga shaqaynaya. muundada hadda ku taalo weyn oo bore laga gudbaayo oo xeentooda xaggeeda ah waagaas alwaaxa ahaan jirtay. kalka waxaa badahaya hadda sokortii badanayso, baabuurtii waa weynaay ayaa badanayso. waxaa la sameeyey markaaseeto waxaa la keenay shirkad Lubnaan ah oo boondooda dhisto. warshadda wixii dhismo ah shirkadda Lubnaanka la siiyey oo natco la dhiyo natco ayagaa dhiseen. wixii kalena waxaa dhiseen Faransiiska iyo Talyaaniga aa dhiseen. alaabta badi Faransiiska iska lahaa. 65 la begay. dowladdu waxay lahaatay saami ahaan 51 size wuxuu lahaaday qodob shirkadii waxay lahaatay 49. markaas waxaa laga dhigay SNAI, Società Nazionale Agricola Industriale. capacity ay soo maximum capacity ay soo saari karto waxay ahayd 2,000 kintaal maalintii. jawaanana 100 kiilo ahaayeen. maana maahan kuwa hadda oo 25 iyo ama 50 lagu keena, maana 100 ahaayeen. nin Soomaali oo la yiraahdo Dr. Axmed Daahir ayaa laga dhigay gudoomiye. laga dhigay nin Talyaani oo Naldoni la lahaayna, Carlo Naldoni, waxaa laga dhigay agaasime guud. meelaha oo muhiimka ah kulli cadaan haystay. waagaas aqoontu waa iska yareed. badi cadaan haystay maamulka, xisaabaadka iyo waxaas dhan ayagaa haystay. ka bacdi waxaa la gaaray 69kii 4 sano ahaan ka bacdi waxaa dhacay isbeddelka dowladda oo tawaatii inqilaab u dhacay 69kii 21 Oktoobar. laakiin markaas ma la qaramaynin. 71dii markii bangeydii la qaramaynayay intan la qarameeyey. markii la qarameeyey talyaanigii joogay bacdama qoladii shirkadii oo mataqaanaa talyaaniga ahayd ayaga hantidooda la qarameeyey waxay u garteen inay jirin sabab ay usii joogaan. maxaa markii hore shirkad talyaani ayaa keeni jirtay oo damaan ka ahaan jirtay, damiin ka ahaan jirtay mushaharkoodii iyo caafimaadkoodii iyo wax kasta.
haddii meeshii ay ka baxday ayagana mataqaanay waa isaga tageen kulli waa uga baxeen waxaa markaas yimaadeen soomaali oo jaamacad soo dhameeyey qaar raashiya ka yimid raashiya uda badnaayeen waxay yidhaahdeen annagaa warshadii wadi karnaa adiga meesha waxaa soo baxay waxa la yidhaahdo marnaan ayaa soo baxday vacuum ayaa soo baxday oo xagga aqoonta maxaa soomaalidii kale joogtay farsamayaqaanada waxay leeyahaayeen practitioner leeyahaayeen dad oo theory ahaan ma dhisneen laakiin waxaan haddii mataqaan cilad soo gasho waa cilad bixin laakiin maxaa keenay ciladda iyo ma jirin isi laga hortegi karaayo waxaa bilaabatay haddana dayactirkii inuu gabaabsi noqdo ilaan dayactirkan meel laga soo dejino waa mogtahay baqaarka wuxuu baahan yahay in lagu bedelo kalku waa ku soo kala dhaafay sokorta keliya ma ahan warshadda markaasna waxaa la sameeyey warshad oo alcohol samayso warshaddaas alcoholka samayso waxay ka soo saaraysaa sokorta magi mataqaanaa oo qasabka laga bixiyo wixii soo haro malasa la yidhaahdaa wixii markaana uu soo haro ayaa laga dhigayey alcohol waxaan loo dirayey faransiiska 2 goor sanadkii lacagta kaashka oo dollar ahaan u soo gasho Italia la dhigayey wixii spare parts meesha laga soo garay laba nooc alcohol soo saari jirtay alcoholka oo khamriga lagu darsado iyo alcoholka oo cirbada nadaafada iyo infectionka iyo waxyaabaha saasito loo isticmaalo ay soo saari jirtay laakiin labada waxa loo dirayay dibadda tan magaciisii tan infectionka waxa saasito qaar wadanka loo dhaafay si cisbitaalada loo isticmaalo inkastoo dadka qaarkiisa iska cabi jireen oo dad badan ku dhinteen ku dhamaadeen waagaasito wuxuu sameeyey isnaaga waxay samaysay cisbitaal oo gudaha ku yaallo oo shaqaalaha hadday jiradaan warshaddan waa u samaysay dhexdeeda meesha caddaanka ay deganaayeenna mid kale u samaysay kan warshadda haddii nin soomaali uu tago oo la garan waayo waxaa loo soo dirayey meesha caddaanka loo soo dirayay daktar caddaana joogi adiga si wixii u socdeen waxaa la soo gaaray 82 waxaa ninka oo daktar najir oo daktar lahaayo Bruno Conti oo daktar ahaa markaas ninkaas wuxuu ahaa nin aad mutaqaanay oo hal abuur lahaa wuxuu ku fikiray alcoholka iska diraayo haddii aad khamri iyo xaas ka samaysid iyo barfuun iyo waxay u baahan tahay inaad soo gadatid akeysatid wixii lagu daraayay oo khamriga laga dhigay nooc iyo magac leh waa sidii mataqaanaa cabitaanka la qasay ahaan ayaan tolay orange iyo waxaas la keenay wixii uu keenay wuxuu keenay mataqaanaa magaciisii wax xab ahaan ah oo laga sameeyo barfuunka alcoholka lagu daraa kalka biyaasa waxay u taagneed 3 fooda ku ahayn ninkan biyaasa waxay u taagneed ayda waxa Bruno Conti asi naagtiisa aada dhaxda ku jirto waxay Abu Bakr mudday saacada u dambaysan waxay ahayd Sayyid Abdurrahman kalka isnaay way fikirtay bacdama waxaan la diray ay aragtay meeshaan qof 3 food caadi isu tagay in wax sameysteen waxay ku fikirtay in ciida ay la wareegto shirka ay la noqoto 82 ayaa lagu la shirkoobay aan la dhisi isnaay biyaasa isninkii ayaa ka ahaa maamulaha sare oo daktarka isnaayna uu shaqaynayay meesha oo daktarka ahaa meeshaana mataqaanaa magaciisii shirku kula ahaa marka dambe daktarnimadu waa iska dhaafay shirkadiisa oo ku socotay saasay ku tabcay markaas wixii waa sii zaa'ideen barfuunkii iyo waa sii socdeen dacasaa la bilaabay kabaa la bilaabay
jeerikaana la bilaabay garaafooyin la bilaabay walow iska ahaya prototype oo cashan marka koowaad ee u sii baahdeed in la sii casriyeeyo ninkii talyaani ahaa meesha ka baxay kalka wixii sidii ahaayeen lee ku hareen waxaa lagu daray hadda markaas oomona waa samayn jirtay alkolkiina waxaa loo sameeyey caag oo mataqaanaa hal liitar ah loo sameeyey oo lagu shubaayo caaga waa tan laakiin oo infectionka waaya waxaa laga gaday farmashiyaasha xamar iyo laga gaday walow marka dambe la ogaaday dadka qaarkood inay cabi jireen adiga shaqaalaha markaasito ugu sarreeyo waxay ahaayeen markii ugu badneed 5,300 waa warshada iyo beeraha 5,300 dadka joogtada waxay ahaayeen 1,800 dadka aan joogtada ahayn oo warshada iyo beeraha magala isku daro 3,500 ay ahaayeen isku darkooda waa 5,300 dadkaasito waxaa loogu talagalay qasabka inay jaraan abuuraan ay raraan lacagtooda waxaa la siin jiray 6 beeray ahayn 6 waaweyn xasaantood waaweyn kiiba 1,000 iyo wax mataqaanaa boqolaal eetar ayay beertiiba ahayd dalka beer kastaba maalinaa la siinayay mushaarka tadooda 6 biro gudaheeda jimca ma la siinayna laakiin sabti ilaa khamiis lacagaa laga qaadan jiray taasoo ah balka maalin kasta lacagaa soo gelaysa shaqaale hadda waa yaraadeen waxaa laga keenayay bulbuurta beledweyne ay ka imaan jireen hadda dad oo haddii weysa ay ku abtirsanaya inay heer beledweyne yihiin ama bulbuurta yihiin waxay ka yimaadeen waktigaasay yimaadeen hadda heer juure bay ka mid yihiin markii dambe waxaa dhacday shaqaale inay sii yaraadeen waxaa la keeni geed la dhahayo harvester makiina oo jarayso qasabka gabalayna ka dhigaysaa iyo makiina oo farkeeti ahaane oo qasabka qaadayso oo saarayso magaciisa gaariyaasha ama tareenka saaraysa ayaa la keenay si hawshii loo dedejiyo haddii kada iska daba keeni karo mar waxaa dhacayso qasabkii inoo go'o dadkan ibni aadam waaye suucdii hore waa fresh waaye markii 6 saac ahaan la gaaro jaa qofku waa daali geedaasaa loo keenay kaalmayn jiray waxaan xasuustaa maalin nin aan sheekaysanayni oo yimid oo ahaa mataqaanaa magaciisii waxay ka socdeen African Development Bank ay ka socdeen waa intii mataqaanaa kacaanka uu jira waaye ninka oo madaxda u ahaa qolka maxaan fadhinay martida markaas wuxuu yiri waxaa soo galay kamariyada soo galay oo Soomaali ah oo meesha ka shaqeynaya wuxuu watay shaati territal ah ninkii madaxda ah waa fiiri ninkii ku maqan yahay asoo gaasa bacdi kaali xasiri seeku nooshiin waadig deena wana weydiinaysiin asoo bangi oo lagu kabo warshada kamalyeeri shaati uu wato xagayna wasiirada wataanu yiri territal waa siri kabiisa kooyaha ujeedaa siri toos ku Italia laga keenay wala mukini Allah sir Italia ninka tago oo ku xirga aan lahayn la gashanayo asoo taasi kamalyeeriina haydi ka wadna galadana sir ana shaati awta kiisa ka qurux badan sir kalka nolosha aad u fiicneed aad iyo aad haddana wuxuu yiri way xasuusinaysaa uu yiri isla aan soo dhaxgalay jidadkiisa oo mataqaana dhaxmar maraayn guriyaha hortooda iyo guriyaha oo mataqaana hal meel oo yaal iyo wixii xasuusinaysaa siri magaalada ku taalo Uganda wada cagaar ah guriga ma arkaysid geed iyo dhir kulli la arkaysaa bis hoostooda guriyaha ku yaalo
aan soo xasuusnaa yidhi ma moodid inaad meel afrika aad joogtid ma moodid marka aad soo gashid halka aad iyo aad u qurux badneed ha waa la imaan jiray joogtaa la imaanaya dalxiis aha loo imaanaya ba adigu soo nasanaya meeshaan waa imaan jireen maalinay joogayeen mar habeenkii jiifinayeen subaxdii dambey baxayeen kalka qasabka ka sokow isnaay waxay abuurtay haddana bumbeelmo iyo aranjo ay abuurtay iyo qudaar oo cagaar kuwa cagaar iyo salaatada iyo waxsaasiyta raqiisay godi jirtay si dadka ay u bartaan dadka waxay jeclaayeen bumbeelmada iyo aranjada geed maxaa loo sameeyey dambiil ah uu samaysan lacag la'aan oo la siinaayo ninku waa gabaha laakiin bishaa laga goosanaa mushaarka laga goosanaa mana wax la dhiibaya markii maaha qudaarta dadka waxay bilaabeen in la baraa la raba qudaartii lacag la'aan waa la yidhi ninkii 10 kiilo qaato 2 kiilo maxaa la siinaya oo cagaar ah baramiil ah meesha safnaayeen ninku waa qaada cagaarka barmiilka isku dhex tuuraa kama yaqaana mu u baahna nafaceedi iyo karoota nooc kasta ilaa marka dambe ay barteen tartiib ay barteen la tusay faa'iido ay leedahay beer kale ay sameeyaan haddana oo tijaabo ah beer la buri azenda buri tijaabo ahayd 120 acre waaye tijaabo ahayd markii hore South Africa qasabka laga keenay dalka waxaa la fikiraya haddii jiraan nooc kale oo kan lamid ah oo wax ka soo saar badan marka ayada miisaanka lagu xisaabtama maana tirama lagu xisaabtama miisaanka lagu xisaabtama markaasito miisaan wax ka miisaan badan oona ka dhacaan badan hadduu jiro kalka meeshaasaa la sameeyey oo tijaabo ahayd kalka waxaa la tijaabinaya eetar ahna loo tijaabinayay kalka markii eetar lagu dhigaayo iyo markii beerta weyn la geynayo isku sii ma noqonayeen kan halka eetar waa kontrooli kartaa biyaha iyo daaweyntiisa waxaasito laakiin xagga geetagta waa ka duwantaa waxaa la ogaaday 310 inuu ku wada fiican yahay aa la ogaaday dalka waxay qasab noqotay markii dambe shaqaalihii waxaa la keenay dad ajnabi ah oo kubaan ah iyo jarmanka bari aa la keenay si la isku day bal inay bedelaan talyaanigii inkastoo oo soo baxday problem xagga luqadda ah ayaa soo baxday kuwana kubaanay ku hadlaayeen kuwana af jarmanay ku hadlaayeen halhalkoo ingiriis yaqaane soomaalina waxay ku wada hadlaysaa talyaani oo talyaaniga la soo shaqay jireen ama soomaali qaaraa jira injineero ahaa laakiin waxay ka imaadeen Russia oo jarmankii ma yaqaano qaar jarmanka waa jira oo Russia wax ku soo bartay ayaga naftooda oo xoogaa la hadli jiray laakiin heer farsamo oo sare ah ma ahayn hada problemkaas waa jiray marka dambe waxaa la bilaabay in la yidhaahdo dad noo qaada dadna Germany la geeyey dadna Cuba la geeyey dadkii Cuba waxaa la soo barayay qasabka iyo geeda laga sameeyo barfuunka intii anaga aan soo gado lahayn waxyaabaha lagu daro alcoholka barfuunka laga dhigayo inta aan ugu tabco la shiido dhacaankiisa barfuun waayba beerta agteedii martid soo carfaayo malinka barfuunka waa dareemaysaa in barfuun yahay geedka ha waa jireen buundooyin badan mid isna laga bilaabay oo la jiray pasarella waxaa loogu talagalay baabuur ma maraynin waxaa loogu talagalay bishkaleeti iyo mooto kaliya inay ka galaan iyo dad lagu socdo inay maraan waxaan jira buunda adag ma ahayn waxaana mataqaanay ninka meeshaan la wareegay wiilkiisa waagii duukaa markuu intay ninkii kala wareegay xilka wiilkiisa ku magacaabay Ponte Federica la dhihi jiray Pasarella hawadiya Ponte Federica la dhihi jiray buundadan dambe oo markii haddana laga baxayo magaalada oo buri la aadayo
برسكا اللي جير برساسكو واي برسكا الصومالي ولا سو غابي لكن برساسكو ننتلياني كي دسي الله مغعابي كل يوم وحال كاس هاد افرتي شنتي كدنبيسه لكن تبرسكا iyo midka lahaa iskaarika fondo 1903 alla dhameeyay ka hor la bilaabay baad biyo xireen ahaan waa ahaayeen oo biyo hoos mari jiray albaabay lahaayeen lix albaab biyaha imaraan ay lahaayeen wuxuu kale waagaas aan ka soo tagay duukaha wuxuu sameeyay jid tareen ah وترانك أوري سوماليا سلقة بليسكا ماشي أكتيسة أيوة هانجرتي حرنته ها باركن كماشي هانجري وهي عدانا أما وهي متقانا الصومال ودتك لا يقعنوا مدح الأهات واقاس وياه الراعي جري ترانك وحوك اللعبانا عم يعيشي ماشي الله ده قرصالة بعد كده باورت ماشي كبحاوة دونك الله ده جيتك ترانك واي أفقوه كده عايز هاسو عمرو سوق قلعي جيت كاسي ترين وعصري وهاي واقاسي توكو عصري سنو كجري تقالك لغد أدونك إنجليز كا فقصدي سبب إنجليز كا فقصدي وقاتي لين والشري لما يربوا حرمان سياسي عيدن كيسي يهوب كيس ودلدله وبهدي وقاتي برمانيا ما لدها وقيسي فرنسا وغوي جيدا أو جيستي ماشي وجيستي وكل ركبتي إنجليز قاتي سي تاريخ ذا اللي ذا إنجليز قاتي وفرفرت وقاتي هذيك مركي دنبه وشدي أخوانتي وعيالاتي دجالكي يا دعي واتي كوبانكي متغنى بحين جرمانكي وابحين aqoontii xoogaa hoos u soo dhacday wax soo saarkii waa yaraaday isagay runtii waa dadaashay shirkada talyaaniga keentay soo ijaaratay laakiin muddo gaaban ay joogayeen 6 bilood 3 bilood wada u badataa sanad joogaysa waana dadkii hore ma ahan dad maxaa dhalinyaro oo u yimaadeen inay ka shaqaystaan ayna ka tagaan دريسيونك waxay ahayd xaruntii weyneed ay ahayd markii hore alwaaxa ka samaysneed taariikhda ku wajidtay 1999 ma ahayn markaas in la dhisay ka bacdi la dhisay iyadii baarlamaanka xamar iyo is waqti ahaayeen haddii aragtida baarlamaankii hore iyo kan isku si u dhisnaayeen منارة ديرتي كل ما قاب أهان إسلا هاي كذا حالة دسي قدار على قدسي حفيسة بدأ الواحد أهان جيرين ماركي هوري كذا بحيث ما يستي إسناي سايس وقت ياسيتو وشد ومطوني لسميسو أروى عادة لقى سميناي لكن تدي غانا لكاني شي لو سميه إلا هذا ولا استعماله إلا هذا مطوني واجس لسميه إلا هذا الاستعمالها فورين كلا سميستا ماشي اللي جبصدي فورين اللي سميستا لا حمر قالوا لي ماذا على الضلضلة قالك مقاسة درسيون كلا دسي حرمت هاد ماريا وجود هي قدوبيا أنا حفيسي زحوها حمر سي وهي إسناية وباعتو حمر أسي أغسوا دمي ومركز تبع آذن تلفون لو دراي أسا دولتك سوى دمينا أسا دولت وكيل وهاي